عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed markasta ku sugan dunida daafeexda dacaladeeda saaka oo ah Jimcaha bishna tahay 16 bisha Febraayo 2018 goobtan waxaan soo fariisanay kaga hadlo marxaladda guud ee ku sugan tahay kayga Soomaalidu degto iyo marxaladda ay ku sugan yihiin shacabka Soomaaliyeed taas oo kaga hadli doono marxaladda ku sugan shacabka Soomaaliyeed baabu horreysay waxaan u diray dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah u yiri dalka dhalinyarada waxaan u diray baaq ah inay dalkooda iyo dadkooda maxay tahay ay dhistaan taas oo ku taaqluba ama maxay tahay la wadaagta dhalinyarada Soomaaliyeed inay dalka iyo dadkan dhisi doonaan baaqaas oo ku saleysan dhalinyarada Soomaaliyeed in iska dhaafan waxyaabaha dib u dhigi kara qaranka ummadda Soomaaliyeed iyo dalka ummadda Soomaaliyeed baaqaas oo ah inay dalka kuwa gudihiisa ku bartay iska daayaan dalka ka taariikhdiisa iyo kuwan uu naafay kuwan uu hadayay dalwada dhammaan dhalinyarada dalka iyaga dalkan iyo dadkan dhalinyaradu iyaga dalka iyo dadkan iyaga iska leh waxa baaqay ku saleysan yahay dhalinyaradu inay dalka uga faa'iideeyaan xoogooda ma aha maanta xilli dhalinyarada Soomaaliyeed iska qabaan kana shaqeeyaan historiyad iyo taariikh la soo dhaafay dalkan iyo dadkan wuxuu u baahan yahay gurmad waxbarasho gurmad aqooneed si dalka iyo dadka loo badbaadiyo isla markaana lagu badbaadiyo jahilnimada soo socota taas waa mid yaqiin ah in ubaxa dalkan ay wax baranaya kuwa dalka dibadiisa wax ku soo bartay iyo kuwa dalka gudihiisa wax ku soo bartay ay uga faa'iideeyaan xoogga iyo muruqa ubadka Soomaaliyeed ee dhalan doona waa in ugu jirta dhalinyaro ee faa'iideystay ama uu fadhi ka dhigay fadhi ku dir uu ka dhigay balwada qabyaalada iyo tahriibid oo dalka iskaga baxaan taasi waa mid horseedi kartaa in ummadda Soomaaliyeed aanay hormarin kumanaan sano oo dambe iyo boqolaal sano dambe way jirtaa dhalinyaro degaro loo mareeyo way jirtaa dhalinyaro degaro ama loo mareeyo qaraxyo iyo dilal qorshaysan waa yaqiin qaraxii 14 October isku soobe ka dhacay wuxuu ku saleysnaa mid ay ku marantay ubax cusub oo dalkan iyo dadkan ay u baahnaayeen isla markaana la rabay inay aqoontooda uga faa'iideeyaan nasiib darro toodii ayay noqotay oo gacan ka daran oo shisheeye ayaa dishay oo way jirtaa balse muran kuma jiro dal walba inuu ubixiisu horumariyo caalamkan ma wadmadeen aragnay Yurubiyaanka waxa horumariyay waa dhalinyarada taasna waa mid loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed in dalkan iyo dadkan fadhiga uga qaano oo inagu iska dhaafno dadka qalbiyada bukaan ama caloolaha bukaan ee ka shaqeynaya waxaan amaanta Soomaali aan rabin qofku waa bashar ma aha inaad ku xukuntid wax ku munaasano hore ka dhacay dhalinyarada baaqa gabagabada aan soo diraya waxa weeyaan dalkan iyo dadkan ayaa u baahan si degdeg ah dawladaha in la gacan qabto iyo madaxdeenu waa mid ugu waajiba meel kasta jooga raaska booni raasacseer Kismaayo Beledweyne Jawhar Burco Hargeysa iyo Boorama Lascaanood Berbera balse Soomaali ayaa tahay waxa ku baahan walaalkaaga Soomaaliyeed kama maaradid isku mid baatiin isku afbaatiin caalamka ama international community beesha caalamku kuma yaqaanaan hebel iyo heblaaya ka timid balse ku yaqaanaan Soomaali ayaa tahay Soomaali baatiin isku jinsiyad isku mid baatiin kuma iyadoo taasi jirto ayaa haddana waxaa jirta xaaladda ama geeskan ku noolahay Afrika xaalad jahawareer oo siyaasadeed dalkeena hooyo wuxuu ka mid yahay libaaxyada Afrika waagii hore balse maanta oo bisha tahay 16 bisha Febraayo ayuu gacanta ku soo dhigi karaa wixii hore u kasban waayay ama kasbashadii ka luntay waa waajib oo waaxun haddii maanta ay Soomaalidu ku tashato inay horumarin karto waxyaabo badan oo ka qabiya gacmooda jir iyo wax ku gooyaan waan ku baahnay walaalkay ama waadi baahantay ma kala maarnee waan soo baahnay qodobka afraad oo ah inaan kaga hadlo maca abwaan Cabdillaahi Qorne waa abwaan Soomaaliyeed waxa aad iyo aad uga xumahay in xarig lagu kaco xaqra maca abwaan Cabdillaahi Qorne oo ah inaan Soomaaliyeed taasi waa mid aan uga baran ma Soomaaliyeed in hooyooyin soo kacaya iyo hooyooyin ubaxa lagu helo xabsiyada loogu talagalay raqam kastarnimada waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu farax ka qaado nimca abwaan Cabdillaahi Qorne
إن الصومالية هذه حمر تبتو هذه كسمة تبتو هذه كروة هاي أوانب الصومالية فكر يمنهم يعني سنان كتو Soomaaliland wax ku faanta dimuqraadiyaduna qofka waxyaabo badan ayuu jideynaysaa inuu ku dhaqaaqo balse Soomaaliland afka ay ka tirto dimuqraadiyad baan macnaheedu ma filiso waxay la soo baxday qaab aan la aqoon ma aha in dilowid wixii shalay dhacay balse wanaad maanta aad afka ku qaadataa wanaad xasuusnaataa history ku qaataa qaraxa 14 October iska soo ka dhacay wuxuu ahaa mid mugdi iyo muddo badan leh dhalinyaro ubax dal ayaa ku baaba'ay hooyooyin iyo aabayaal waxba qalabsan ayaa lagu dhaqaynaysaa waxaan u sheegayaa Soomaali in la xuso isla markaana maalintaasi noqoto maalin boroodiir 14 October iska soo dhacday waa maalin Soomaali oo dhan ay rabo inay xusto sanad walba bisheeda in la xuso waana muslim xamed faarax muuse wariya oo idin Soomaali ilay salaamtii gul iyo gobanimo ayaan idin rajaynayaa